asxaabta soo dhawaada maanta waxaa idinla wadaagaa saliid dabiiciya oo ayada dhan xanuun baabi'iya haddii dhabarku ku xanuunayo aaday ugu wanaagsan tahay. Lafaha kasoo qaad ku xanuunaya lowsyaha kala goysyada waa saliid daawa. Maxaa kuu dheer gacantaada ayaa ku samaysanay adoo gurigaaga jooga. Saliidan waa saliid u fiican caafimaadka, waa cuni kartaa, tinta way kuu bixinaysaa oo weliba meelaha buuxa ayay buuxisaa meelaha banaan. Sidoo kaleeto saliidan waa la cabaa, waxyaabaha fahmada kor usoo qaada ayay kamid tahay. waa wax najuraala runtii aan waxba ku yeelayn. Sidoo kale saliidan kasoo qaad meelaha sida ragga markay bidaarta kusoo bilaabanayso meelaha banaan ayay buuxisaa. aan fiidiyowgeena gudagalno. bismillaah, allaahuma salli calaa sayidina maxamed. kow waxa aan ka sameynaya asxaabta, waxaa idin tusaa geedkan sida aad meel u dhiganaysid baa idin tusaa. kow dhalaa ku ridaysaa, mid walba waxaa jira asaga oo qoryo saan oo kale bac baa ku xiree dhalaa ku dhex ridaysaa. asaga oo waxaa jira hadana shiidan, wax badanaa idiin soo geliya, haddana waa idin tusaa. bac baa ku xiree, bac kalaa kula sii xiraysaa, waxaa gelinay dhalaa ku ridaysaa, waa dabooleysaa ama freeserka gashane ama meesha rabtaa dhigane. sida marka asagoo budaana saasuu yahay. marka geedkan maxaa idinku sheega wuu noo soo socdaa waxyaabaha saliida ka sameynaya. saliid baa soo qaadanaya. saliidan laasim waa inay tahay saliid saytuun. marka waxaa waaye waa xabad sanjabiila aan soo jarjaray. ma haysatid ayadoo fresh waxaa ku dareysaa qaado oo ah sanjabiil. sanjabiisha aaday ugu wanaagsan tahay dhabarka. waxaa kaleeto aan haysta geedkan, waa geedkan idin soo tusay, waa geed qusul hindi. haddaa haysatid isaga oo qoryo ama isagoo fresh saasa ugu ridaysaa markaa saliida dabka saaraysid. waxaan waa waxa saddexaad aada caafimaadka ugu wanaagsan. geedkan waa geedka nacnacada la dhaho. suuqa meel kasta wadankeena waa ka baxaa, guri kasta waa lagu beertaa. waxba ma doonayo sida loo beero xataa waa idin tusay, mar labaad waa idin soo celinaa. waxaan ka qaadanaynaa kaliya caleenta, qoryaha waa iska tuuray. saliida geedka nacnacada waxaa laga sameeyaa saliid kasta oo xanuun baabi'iyo kasta oo dhabarka ama lafaha la mariyo wuu ku jiraa. sidoo kale dadka masaajka sameeya oo meeluhu u furan yihiin, saliida koobaad oo ay masaajka ku sameeyaan saliida nacnacada waaye. marka gurigaaga ku sameyso adoo aan soo gadanin. marka nacnacada soo jarjare waxaa sameynaysaa saliidi saytuunkii ayaa ku daray. runtii saliidan tinta way kuu bixine, meelaha banaan way kuu buuxine, waa cuni kartaa. waxyaabo kalena waa ku darayaa. markay saas ay usoo karkarto usoo qamdacdo kasoo qaad. marka waxaad haysataa qusul hindiga, asaga oo waxaad haysataa shiidan. waxaa sameynaya marka ay saliida saa usoo karkarto udgoonkeeda guriga dhan carafo kuu noqonaa. waxaa ku dareysaa tii budada ahayd. kan budada qoryaha markii hore aan kusoo darnay waa kaa. midka budada hal qaadaa ku daree, markaas aad dabka ka daminaysid. laakiin hadduu qoryo yahay marka koobaadaa ku daree. saliidan tan kale dabka wax badan ma saaraayo. asxaabta 2 xabo liindhanaan aan soo qaatay, galkii ayaan kasoo xoqday. galka liindhanaanta waxaa ku jirta saliid, waxaa ku jira vitamin C, ma malayn kartid. markaas dabkan ka daminayaa. galkiis liindhanaanta oo aan soo xoqxoqay ayaan ku shubayaa, waa ku daboolaa udgoonka. haddana nacnacada guriga dhan udgoon uu noqonaa. saliida nacnacada aaday u kulushahay, marka tan waxaa waaye marka udgoonna waaye. runtii carafteeda ma malayn kartid. waa daboolaya ilaa ay ka qabowdo. marka asxaabta saliidii hadda waa diyaar. saliidan dhabarku markuu ku xanuunayo waxaa sameynaya dhalaa ku shubanaysaa, kadib biyaha karkarinaysaa, kooba in yar ku shube. dhabarka ku xanuunaya marine, lafaha ku xanuunaya marine, tinta waa marsanaysaa, meelaha banaan waa kuu buuxine. runtii saliidan waa saliid aada iyo aada u wanaagsan. dad waxaa jira negative iskala soo taagan oo ku dhahay saliida dab la saaraa. saliidan saas aa loo sameeyaa. dadka ma wada heli karaan, ayadoo diyaara ayaa jirta oo biyo cad ay u eg tahay, aadna way u kulushahay, wayna udgoon tahay. marka hadda tan aad diyaara uma baahnid taas, gurigaagaa ku samaysatay, gacantaadaa ku samaysatay. runtii markasta dadka dhabarka xanuunayo aaday ugu wanaagsan tahay oo waa marsanaysaa, waa ku daliigaysaa, laakiin waa qandicinaysaa. biyo qandaca ku dhex ridi ama waa qandicine. saliida iyo liindhanaanta iyo nacnacada qandhaha haday ku hayso, waxaan ka wadaa saliid saytuun iyo liindhanaan waa ismarinaysaa. waxyaabaha qandhada jabiya ayay kamid tahay. marka tan oo kale cad baa jirta oo meelaha dhirta lagu gado waa la ismariyaa, lama cuno. waxaa jirta ayadoo buyuura oo originaal oo la gado aada u culus. saliid saytuunta lagu daraa, tinta la marsadaa. nimanka waliba markay bidaarta gelisay u fiican tahay.
oo saasaa u marinaysaa. Jirkana waa la mariyaa oo waxyaabaha waxay ka mid tahay marka uma baahnid waxyaabaha dhabarka u fiican, lagu xanuunka, lafa xanuunka, adaa taadii a soo samaysataa iska marinaya dhabarka, lafaha, meel kasta oo ku xanuunaysa. aaday u wanaagsan tahay. Saliidan waxaa la sameeyaa mideeda originaalka 7 dhibcood oo yar yaraa biyo koob biyaha ku dhibcinay subaxii aalasay baa isku tuuraysaayo waxyaabaha fahmada kor usoo qaada ayuu ka mid yahay. laakiin hadda ujeedadeena waxaa waaye saliid tinta u fiican, tinta way kuu jilcine, way kuu bixine, meelaha babanaa way kuu buuxine. maxay kaloo sameynay waa xanuun baabi'iyo dabiiciya, gacantaada ku samaysatay, waa wax iisiya, lacag kaama kadna maxaa la dhahaa 1,000 geni xataa ma joog, 1 shilin ma joogto. oo nacnacada suubisaa lagugu siinaa suuqa markaad tagtid kasoo adeeganaysid, adaa gurigaaga ku beeran karo. laamaha nacnacada iyo ciid yaraa isku shubaysaa, caag aad afka kasoo goysaa ku shubaysaa, deydkaa dhiganaysaa ama balakoonkaa saaranaysa, saliidan kaale iska arag, daboolkaa ku xiranaysaa ama talaagadaa gashanay ama banaankaa dhiganaysaa. runtii waa saliid dabiiciya. walaalahayga gambaleelka furta, janalkeena subscribe dhahaya si wax walba idiin soo gaaraan. videoga koomanta qurux badan sidiinoo kale ka buuxiya, pageka follow dhahaya. intaa ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. intaan video kale ku kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.